بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هذا بارك الله فيكم ميل كستو الدنيا كتشوفتان أدي أبين السلام يا حياكم الله وجزاكم الله خيرا ولي وحن كل حجرنا الدرس لين كسر سنة تعليم الصلاة برشاد الصلاة وحن كسر هذا الناي ولا ليال دروستي هراء ويسادة يطهارة أين كسر هذا الناي waxaan ka hadlaynaa caawa almasxu cala alkhufeyn labada khoof in la masaxo khoof macnaheed waxa weeye waa waxay xidhan jireen waqtigii saxaabada la xidhan jiray oo harag ka samaysanaa oo sida sharabaadka oo kale loo isticmaali jiray isagoo keliyana mararka qaar way ku socon jireen saxaabadu macnaha kaba la-aan mararka qaarna kabahay ayay ku xidhan jireen sida sharabaadada aynu kabaha ugu xidhan oo kale markaa khof baa la odhan jiray harag buu ka samaysanaa marka in kuwa la masaxo halkii laga meedhi lahaa lugaha in la masaxo bedelkooga ayaan ka hadlayna in la masaxo labada khof marka ilaa haddana waa la helaa waa la isticmaalaa iyagoo haraggii ka samaysan marka in la masaxo halkii aad ka meedhi lahayd lugaha aad masaxdo labada khof waa sunne markaa meedhitaankii baad iska daynaysaa markaad xubnihii kaloo dhan soo meedho wejigii gacmihii madaxii soo masaxdo soo luqluqato soo sandaarsato ood weysadii intii kale oo dhan soo dhammayso halkaad ka meedhi lahayd lugaha haddaad khuf xidhantay laba khuf waad masaxaysaa halka la masaxayaana waa daahirahumaa waa korka sare duuna baatinihimaa xagga hoose lama masaxayo yowman waleyla habeen iyo maalin ayuu xaqu leeyahay qofka aan musaafirka ahayn ee caadi u nagaadan wa 3 ayaam walayaalihinna saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayuu xaqu leeyahay qofka musaafirka inuu masaxo marka markay weysada qofku ka jabto uu soo weysaysanayaa xubnihii intii kale markuu meedho lugihii halkuu ka meedhi lahaa mar walba uu masaxaya shardi baa ku xidhan shardigaas waxa weeye yajibu tahaaratu alqadamayn qabla dalik qabla lubsihima intaanad xidhan khufka labada qof waa inaad marka hore weyse dhammaystiran oo caadiya aada weysaysato ood maca lugaha meerayso kadib markaaad xidhato labadii qof kaasaa shardi u ah waxaa bannaan haddaba labada sharabaad in la masaxo sharabaadooyinka waa la masixi karaa inkastoo madaahibtu isku khilaafsan yihiin oo madaahibta qaarkood ay diidan yihiin in la masaxaba sharabaadada ay leeyihiin lama mid aha qofka loogamana tusaale qaadan karo laakiin sida saxiixa culummada casrigan u badan yihiin waxay tahay jawaasu lmasxi cala aljawrabeyn sharabaadada in la masixi karo samiikeeni min suufin wagayri waa inay noqdaan laakiin sharabaado is haysta oo suuf ka samaysan ama wax kalaba ka samaysnaadaan waa la masixi karaa sababtuna waxay tahay waa taysiiran cala alumma wa rafcan lilmashaqati canha in ummadda loo fududeynayo oo dhibaatada laga dulqaadayo gaar ahaan waqtiyada barafku da-ayo ee winterka lagu jiro dadkan qurbaha ku nool dee dhib bay ku tahay inay mar walba lugaha meedhaan qabowga badanna u jiro markaa waa la masixi karaa nawaaqid ulwuduu weysada maxaa buriya weysada waxa buriya weysadu waxay leedahay nawaaqid waxyaabo buriya salaadda waxay leedahay nawaaqid islaamku wuxuu leeyahay nawaaqid waxyaabo kasta waxay leeyihin wax buriya marka weysada waxa buriya wax yani waxyaabahan soo socda mid ka mid a haddii qofka uu ku dhaco oo ay ka dhacdo uu sameeyo weysadu way ka buraysaa waa in weyse labaad uu qaato oo uu dib u cusboonaysiiyo ta koowaad waxa weeye khuruuj shay min ixda sabiileyn waa qofka ay ka soo baxaan labada wado mid ka mida wuxuun ay ka soo baxaan 1 iyo 2 xagga hore iyo xagga dambe haddii qofka wuxuun ka yimaadaan ama kaadi ha noqoto ama saxaro ha noqoto ama neef ha noqoto ama wax kale ka yimaadaan qofka haddii ka yimaadaan ama dhiig ama wax kale weysadu way ka jabaysaa laakiin waxaa la siiyey cafis dadka iyagu xanuunka qaba ee waqtiga qaboobahoo kale aan kaadida ceshan karayn wax ka imanayaan ay ka tafiq leeyihiin kuwaasoo kale weysadu kama jabayso laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha dhibaato ilaahay ma saarin kuwaas culays korkooga lama saarin laakiin waxaa fiican inay ku dadaalaan markay salaadu soo gasho inay weyse qaataan oo inay ka hor sii weysayso qaadan
marka la adimo inay weyse qaataan haddii xitaa iyagoo salaada ku jirta ay wax ka yimaadaan dadka xanuunsanaya ee aan kaadida ceshin karayn ee itifiqda ka leedahay salaadu kama jabayso salaadooda way iska wadaneen kaa waa la isku raacsan inuu weysada jabinayo wax kastoo ka yimaada xagga hore xagga dambe waa la isku raacsan ka labaad waxa weeye annoom mutlaqan hurdadana waa la isku raacsan hadduu qofku caadi u seexdo isagoo weyse qaba weysadu way ka jabaysaa markuu soo tooso waa inuu weyse qaato laakiin waxaa la isku khilaafay qofku isagoo fadhiya oo si fiican u fadhiya oo salka dhulka ku haya haddii uu gamo oo hurdadii ka xoog badato weysadii oo salaadna sugaya weysadu may ka jabaysaa kaa way isku khilaafsayn culummadu sida saxiixa waxa weeye haddii qofka miyirkiisa uu joogo oo wax fahmayo oo neefina ka timiyo waxa uu dareemayo weysadu kama jabayso wax dhibaataa male weysadu kama jabayso markaa wax dhibaataa male laakiin haddii isagoo salka dhulka ku haya oo fadhiya oo salaadii sugaya ee hurdadii aada uga xoog badato inuu caadi u seexdu khooriyo oo uu dhaco oo macnaha markaasoo kale weysada way ka jabaysa haddii miyirkiisu caadi u tago waayo qodobka saddexaad waxa weeye aliqmaa wa zawaalu lidraak haddii qofku miyir beelo uu suuxo ama seexdo ama xisku ka tago weysadu way ka jabaysa sida waalidoo kale sakhraannimadoo kale qofku sakhaamo ama mukhaadaraad uu qofku qaato weysadu way ka jabaysa ka afaraad waxa weeye lamsu lmar'ati mutacamidan biqasdi shahwa qofku inuu gabadh iska taataato ama uu gacanta kaga dhacdo isagoo ujeedadiisu ay ka tahay dareen iyo shahwa kaas culimmadu in gabadha in la taabto oo weysadu kaa jabinayso aad baa la iskugu khilaafsay afarta madhab sida saxiixana waxa weeye inaanay jabinaynin weysadu gabadha taabashada la taabanayo inaanay jabinayn gabadha laga hadlayaana waa gabadha kaa ajaanibka ama xaaskaaga ha noqoto ama ajaanib ha noqoto lamsul farj xubinta taranka qofku inuu taabto mutacamidan u kas u taabto iyadoona waxba ka xigan uu taabto gacantiisa xubintiisa taranka uu ku taabto weysadu way ka jabaysaa bay culimo badan aaminsay kana waa la isku khilaafsay waxaa jira culimo badan iyaguna aaminsan inaan weysadu ka jabayn fa inamaa huwa cudmu minka ayay daliishanayaan xadiiska rasuulku lahaa waa xubin jirkaaga ka mid oo kale un oo sida gacantaadoo taabatay marka wax dhiba weysada ma geysanayso haddaad xubintaada taranka taabato ama xagga dambe qofku taabo alqayu lkaamil matag qofku hadduu matago isagana culimo badan xaminsay inuu weysada jabinayo culimo kalena xaminsay inaanu matagu sidiisaba aanu weyse jabin lixdaa qodob ayaa weysada jabiya oo qaar badanna la isku khilaafsan yahay marka laga reebo labada hore oo la isku raacsay faa'iida ayaan raacin doona kusoo gabagabaynana faa'iidada waxay tahay qofku hadduu weyse qabo oo si fiican u weysaystay arrimahan soo sheegnayna uu ka shakiyo qofku inay weysada ka jabtay qofku inuu shaki ku shaqeeyo maaha waa inuu yaqiintiisii hore ee ahayd inuu hubay 100% inuu weyse qabay ayuu ku soconaya shakigu meesha kama saaro yaqiinta marka qofku hadduu yaqiinsanay inuu soo weyse qaatay uu hubay 100% laakiin uu gadaal ka shakiyay inuu weyse jabay ama wisiilaas neef baa kaa timay ama waxyaabahaas aynu soo sheegnay weysooyinka jabiya uu ka shakiyay mid ka mida inuu sameeyey weysadu kama jabayso yaqiintana shakigu ma suuliyo